waxaa jirta ku dhaw warqad aa saxiixay warqadaas sanad ii bara hadda dacwad iiga socotay alxamdulilah hadda waa iiga soo dhamaatay waa ku guuleystay waxaa saxiixay yacni wax oo nafsadeeda khatar u ahaa saxiixay ma fahantay oo dhakhtar ah ما xubnahaagaa iibisay maya waxaa la rabay kaadi heestii kelida ma arkino in meel u aa dhexeyso waxaa laigu dhahay waxay u baahan tahay qaliin haddii la qadan waxaa laga yaabaa kelidaas inay difeeto gaarto hadhow kelidaas in haddii wax gaaraan lagaa bixiyo saxiix waa saxiixay because wixii ma fahmeynin turjubaankii ii imaadani ba ita xataa muuse aqooni khatar iskaga dhigaaye asag xataa yaa oo idhah jar qalinka ku jiiday maalintii dambe marka nafsadeyda khamaar ku galeen war nafsadeyda halis ku gala xataa cadaabta ay geliyeen dadka waxaasi weliba jarmalka dadka jooga dadka oo dadka dhan ma eedeyna dadka jarmal jooga wallaahi bilaahi talaahi 85% wax ka xaasisan hooyo ma dhalina ku dhahay markaasaa waxaa igu dhaca warqadii saxiixay kadib waxaa la ii keenay maamo Zainab la dhahayo wadanka adiga ilaa iyo 30 sano ka badan joogtay markaasaa waxaa la igu dhahay gabadhan kelidaasaan ka tahay warqadan waa saxiixday in qalin lagu sameeyo waa maya ku iri waa u dhima karaa lee maahane i kartufa i imaan karta maa wallahi inaan kelida la taabanin qaleeyaa dhahay adi waagi dambeeto waxaa waaye noloshayda qamaara ku galay waxaana aqoona saxiixay labo hooyo aabo walaal ehel ilmaheyga malahan 3 qof oo waxaa waaye caawi 4 social media dhan waxaa ka noqday meesha kashid caad qaato dhunta shaqeysta oo waxa ogeen youtube-ka maxaa la tiktok waaga saxta si fiican loo aqoon facebooka meel kasto anaa lagu hadalhay marka Soomaalida adduunka horta waxaa la rabaa mogta in qofku wax fahmo dadka qurbaha joogana mid ay fahmeen waxa weeyaan war qofa Yurub joogo oo 5 sano 6 sano 10 sano joogo haddana ma yaqaan sharciga wadanka u yaalo asagoo wadanka 10 sano joogay oo wuxuu kugula doodaa wixii waa sameysay okay wixii waaba sameeyabo laakiin hadda xala u baahnaa waxa uu xalka u baahnaa inaan nafiso inaan nastaraba waa daale maskaxdiya ka daal yani qofka markuu maskaxda ka daalo jirka daalkiisa ma dareemayo because maskaxdiya daalan marka qaar markaa seexanayo waxa igu soo dhacaayo waxyaabo badan hurdadu way iga haadeysaa waxa ku yiri quraan iska akhriso heblow inta waa adeer waa abti waa ciido waa dadkii ehelka ahaa kugu dhawa intaana ka ahayn hooyaday i dhashay iyo aabahay naxariis janna Allah ka waraabiye wallaahi billaahi talaahi inaanan arag aan il saarin adeeraday kulligood inta wada joogaan Scandinavian-kan adeeraday aabahay hooyo ku aabaa joogo wallaahi inta ii imaadan guriga soo gala salaamu calaykum gabadhii kaliya war ina Cabdirashiid ahayd ma jirto yani waxa kuna xay kaliya waxa waay qofka ka soo dhaxbaxda hooyada oo salka ka keentay baa kuna xiiso inkastoo aan hooyaday maaragtay saaxiib aan nahay oo laba qof oo saaxiib camal ah u sheekeysano ayada baa garabkayga ahayd cid kaleeto oo garabkayga soo istaagto oo hooyaday ahayn adduunka ma saarnayn dadkii dhan markay dhaheen saasaa tahay hooyaday waxay dhehaysa qoreesha ay tahay anaa ku dhala brim boosteyadeeda wax kasta dadku dhan anaa hooyada ah ay dhihi jirtay hadalkeeda ku ilaabi jir wax walbo hooyaday hadalkeeda ku ilaabi jiray saa marka qurbaha wuxuu u baahan yahay lagu caawiyo maanta qofku uu caawiyo hadaa heli weysani waa go'eysaa haddana walaashay horta hodan ilmoole waa ilmo yaryar oo biyaa mujuqyaa haystaa haddana ingiriiska waa kasii daran tahay meelahan aan joogno Scandinavian-ka of course waxay u baahan tahay qof caawiyo u baahan tahay qof maanta hadday suuqa aadaysa hadday maaragtay lesson diyaarinaysa qof ilmaha kasii reebay rabtaa yani dadka ibnaadinka in la caawiyo u baahan yahay aniga inkasta hadda ilmahayga oo jarmalka ii joogin oo hadda aab rabinba hadda inaa keena xataa waayo way yaryar yihiin laakiinse waxaa waaye ani dhibka Yurub ku arkay way iga xanuun badan tahay lixaadka waaye absolute way iga xanuun badan tahay lixaadka ilaaha keen mufta ilaaha waxaan keen ilaahana xalkeeda helaayo laakiinse waxa iga xanuun badneed dhibka soo mar hadda kaligay aan noolahay gurigan kaligay deganahay Allah ilaahay ii suurta geliye waxa ku yiri cuntadeeda qof iima karido gurigay qof iima nadiifiyo waxa ku yiri yani hadda waxa u noolahay qofka lixaad qabo waa shaqeystaa wax iga maqan haba yaraatee ma jirto
yacni qof waxaa noqday oo asagii dhan maaragtay strong yaa noqday oo dadkaasna waxay ii noqdeen ayaga naftirkooda cadaawadooda waxay ii noqotay dhiirigelin oo markasta maskaxdeeda waxay soo xasuusanaysaa wixii horeeto waxaa leeyahay waa ka dhabay kartaa faa-is waxaa samey waa samayn kartaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. faysa wadani waxay dhahday naftaydan khatar geliya xitaa in aan anigoon luuqadda aqoonin duruuftan soo maray awgeed inaa xitaa kelideyda saxeexoyn layga qalaayo almala bixinaayo. subxaan allah, duruufta gabdhaha ku haysata qurbaha ilaahu ka saar. waxaa sababa nin soomaali soo qaxiya soomaali. ibnu aadankana waxaa waaye waxaa la bartaa maalintay baahi gaar ah ku qabato hata hodan yacni waa dareemi karaa xaaladaas oo kaleeto. horta alxamdulilah ilaahay wuxuu mahadoo dhan ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay laakiinse adduunkan aan ku noolnahay maalinba waxbaa la arkaa maalinba siyay wax noqdaan dad xun dad fiican dad iska caadi ah dad oo waxaa arkaysaa asdhays dadkaana dad maanta kuugu dhawa ama dadkaana dhib hadduu ala xataa inkees kuugu dhaco kuu heeli doono laakiin maalintay meel kaa xumaato aadan dib danba u arkaynin amba kugu farxaya oo kuu kala kacsan karaan. haa soo marka abaya dad waxay dheeda dad oo depression hayaan oo daawo la siiyaa jiro stress kala ihinin dadka marka hadda waxay dhahaan dhegtaanan geliya dhegta kalan ka bixiya because waxay iisoo siyaadinayaan male oo laakiin waa isku taxaluuji jir qofka muxuu community soo qoraa qofka muxuu reactionkaaga soo bixinaa qofka muxuu saan kuu dhahaa qof yacni dadka dhan maxaa waaye saan wixii oo dhan hadda waxay noqdeen musqusha adoo tagto kasoo noqotoo kale ma fahante soo marka waxa waaye waxay ku baraysaa qurbaha xaqiiqatan aniga 2018kii iyo 2019kii daawadaas depressionka qaadanaya waana xataa waa ka sheegay youtubekayga wax kaleetana uma aana qaadanaynin waxay ahayd problem oo iiga furmay dadka hooyaday iima geysan aabahay iima geysan walaalkay iima geysan cid kale iima geysan shacabka soomaaliyeed oo waxba hubsanaynin oo maanta ku dhehaynin see wax u jiraan iyo see wax yaala qof ila moogta qalbiga ibni aadanka waa ukunta hadday jabto waa se u jabtay lagama soo noqdo booqii oo social media iiga furmay oo haddana meel keliya ah ku jooga oo maanta ehel ii joogin oo arxan ii joogin oo qofa maanta ku kor oynaya oosan jirin waxaa ku iri cuntada ka go-ay cabitaankii adduunkii oo dhanaa igu soo aruur qola isku xiray amiiray qola inta isku xiray 40 kiilaa noqday soomaaliya gabdhaha daaya 70 kiilaan ahaya tirfaysa wadani 40 kiilaan noqday. subxaan allah, dadkan dhib badanaa ummadda daaya oo gabdhaha daaya dhibaataysan tuasay u saaran tahay lama daynayo tucuryaana lama daynayo. dhibkaas ay gabadhahaas la wada dhiban yihiin oo dhan ragga soomaaliyeeda u sababa waa wada masiibooyin wallaahi bilaah. subxaan yaa qaadir. anoo 70 kiilo ah 30 kiilo degdega waxaa iga dhacday 3 bilood gudahooda maskaxda iskala hadle waa waree wuu adheh yacni soomaaliya dhan ma xumo in yaroo xumaato un keliya waay kabacdi dhakhtarkii daawada ii qari daawada jirkeygii heer waxaa gaaray kiniini ku seexdo kiniin la-aantis indhaheyga birq isku sii waayo inkastoo markii dambe kiniiniga dhaafay oo maskaxiyan iyo jir ahaan daawadii i qabsatay oo haddana daawadii ka maarmi waaye adi qur-aan badan waxaa ku iri aabbahay ilaah u naxariisto waxaa waa ii hooyo qur-aan badan maalin kasta jimco walbeeto waxaa ku iri qur-aan si liisoo saarayay oo anigii dhan waxaa ku iri qof kastoo wanaagsan iyo qof kastoo xun meeshii aan kala kulmay anyways adi markii dambe 2020kii bilaawgiisii ilaahay subxaana watacaala waxaa waa dhibka iyo murugada aha wuu iga qaaday dad wanaagsan oo aan adduunka ugu jeclaan waa waaye dad fiicanna waan ka barta social mediaha yacni qof kasta maalinba weji cusubaa baranaya marka waxaa waaye markaa qurbo joogtid
ehel kuu joogin arxan kuu joogin dhib kugu qabsado xaqiiqatan inaa waalato wax yaraa uga soo wax kaaga soo dhinaanaysa ma jirto oo waa waalanaysaa ma fahmaysa laakiinse waxaa waaya aniga heerka aa gaaray uma maleynayo qof ibni aadana inuu gaaro kow waxaa waaye anigoo maanta soco karin oo luga lahayn oo waxa ku dhahay haddaa isciilkaambi banaanka aa aadi karin oo waqtigaasna aan jarmalka imaanayna waxay ahayd moogtaa waqti oo xaaladeed aad u adkeed oo keliya dee qof la dhigaayo la qaaday ahaa isciilkaambi qofka moogtaa marka oo isciilkaambiyo waxaa fiican inuu hawo soo qaato oo banaanka uu aado oo nafsadiisa yacni hawo uu soo siiyo waxaa ku dhaha wixii dhan ma lahan fayse wadani waxay tiri waxaa saxeexay kelidaydii anigoon garanayna luuqadda waxay turjumo waxay caawiye aan waaye waxaa qaatay kaniinka waalida calashaanka soomaalida dhibka ay i geysteen iyo mashaakilka igu fureen iyo buuqa iyo barbalaynka heer waxaan gaadhay aan waxba qabsan waayo oo nolosha dhan ka dhaco subxaan allah gabdhaha ee dhaha dhibkaa laga daaya social media ku jira gabdhaha social media waxaan isu qarnay waa waxaas inaan nawaashin annagana waa ka baqnay dhibku ku qabsado qof wax ku caawiya u baahantaa wax nooceeda muslini gaal u xiramana aadan yacni nafsiina u baahantaa qof ku caawiyo aniga waxaa waaya horta caawinaad ma helin ilaahay subxaana watacaala wuu imaqlaa aadanahaas meesha aad degnaa horta xogaana meel oo iska tuulaa ahayd wallaahi yaa ku dhaartee maanta inaanan luuqad aanoo aqoonin oo dhakhtarka wuxuu idhahayo aan fahmaynin soshaalka wuxuu idhahayo aan fahmaynin naagta ii imaanaysa ama dadkii caawinaa waxay dhahayaan aanan fahmaynin qofkii soomaali wacaan iraado walaalo macaano beri balan saasaa leeyahay qofa ii imaanayo weliba gurigeyga la iigu imaanaa kaale guri xataa ma ahayn dadka beeshinka meesha la geeyo aa ku noolaa sanad iyo bar meeshaasaa ku noolaa because sharci ma haysan guri ma haysan wax ma haysan aniga dhan waxaa iska aha mataqaanaa dee qof oo adduunyo iyo aakhiro u dhexeeya iska aha mafahamti oo mararka qaar aa iska dhihi jira ilaa rabbi raxmaano adduunkan adaasaa ka sheema naftale qaadis war waqtigaan dhaa xataa salaad inta tukado ilaahay u baryaa jirtay subxaan allah wallaahi bilaa inta salaad tukada ilaahay waxa u baryay ilaahu rabbi raxmaano dhibkaan adaa ila jeclaaday laakiin adduunyada waa ku noolaa waa ilaahu nafta iga qaad wallahi naagtii waxaa inta salaad u dukatay ilaahay saa ugu bariday subxaan allah marka adi waxaa waa qofka soomaaliga markaa waxay tiraa boo kaale waa ku baryaa ii turjin berri toole hayuu ileeyahay habeenkii oo dhan waxaa waaye facebook oo kusoo jeedaa qofkii subaxii ballan 3 saac oo kaleeto 9 subaxna maa leedahay 11 kusoo waca allah baay waa hilmaamay hurdaa ila tagtay saane aheed aa lagu leeyahay yacni waa sababta hadda luuqadda u bartay in aan qof jaftaas kasoo galo yurub dadka sidaas ognahay oo dhan dadka dhan jaftay kasoo gala qof kasta wuu soo tahriibay ninka aniga wadanka asagoo jafta kasoo gala maa ka fiicanamay ani naftarkeyga hoodkaasaan kasoo galay saa marka waxaa waaye anigoo luuqada ku dhibanaa oo qof caawisa aa lahayn oo maanta waxaa ku dhaha wareer adduunyo